Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal, ku soo dhawaada kanaalkeena. Muuqaalkeena maanta saaxiibayaal waxaan kaga hadli doonaa qisada ninkan loo yaqaano Malcolm Gladwell amba qisada Malcolm X. Sida ogtiin saaxiibayaal, ninkan loo yaqaano Malcolm X waa mid ka mid ah waa geesiyadii taariikhda soo maray. Weliba ninkani waxuu ahaa nin muslim ah. Soo saaxiibayaal, muuqaalkeena maanta magacaygu waa Mr. Hayy. Hadda haddii aad nagu cusubtahay saaxiib nagu soo biir. Haddii aad hore noola joogtayna muuqaalka like noo saar. Malcolm X amba Malcolm Gladwell ninkan loo yaqaano waxa uu ku dhashay 1925 May magaalada loo yaqaano Omaha ee gobolka Nebraska ee Mareykanka ku yaala. Haddaba ninkan waalidkiisa ayaa waxay ahaayeen dad ku barbaariya isaga iyo walaalihiisa ka yaryarba kuwo markaasi difaaca xaqa ay leeyihiin dadka madowga ah, yacni dadka la cunsuriyeeyo. waqtiyadaasina waxay ahaayeen waqtiyadii ay socdeen waxyaabihii loo yaqaanay midabta koorka. Sidoo kale aabihii waxa uu ahaa nin faafiya amba wadaad faafiya fariinta hogaamiyahooda oo la odhan jiray Marcos oo u ololeeya dadka Afrikaanka ah sharafkooda iyo qarnimadooda qaabkay u dhisan lahaayeen. Laakiin waxaa dhacay marar badan in dhib weyne ka dhaco gurigooda, halkaas oo ay kusoo weeraraan kooxo loo yaqaano markaasi xagjir oo ka tirsan markaasi dadka caddaanka ah, halka ugu dambeyn loo dilay aabihiisa si arxan daran oo markaasi aad looga naxo. Taasina waxay aad ugu reebtay niyad jab qoyskiisa iyo ninkii Malcolm X ahaaba dhammaan noloshoodna waa ay saamaysay. Haddaba caruurnimadiisii iyo jirdilkii cunsuriyadeed hooyadiis waxa loo yaqaanay Louise Little waxay ahayd haweeney geesiyad ah, balse cadaadiskii iyo faqrigii ayaa aad uga tanbadeeyey dhibaatada maskaxeed ayaana soo wajahday. Taasina waxay keentay in dhammaan isaga iyo walaalihiiba la kala fogeeyo oo midba ay iska qaataan kuwa ciyaalka korsada, halka markaasi Malcolm loo diray iskuullo ay ku badan yihiin carruurta caddaanka ah, halkaas oo si joogto ah loogu xasuusin jiray in uu yahay madow aan waxba aqoonin, waxna aan baran karin, horumarna aan weligiis gaadhayn. Haddaba mid ka mid a macallimiintiisa ayaa Malcolm waxa uu weydiiyey waxa uu rabo inuu mustaqbalka noqdo iyo meesha uu hiigsanayo. Haddaba Malcolm ayaa waxa uu ugu jawaabay inuu rabo inuu noqdo qof qareen ah ama dadka xuquuqdooda u dooda. Midaasina macallinka aad ayay uga cadhaysiisay oo waxa uu ku yidhi midaasi suurtagal ma noqon karto adiga oo qof madow ah, taasi kuu suurtagal mayso, sidoo kale ma awoodi doontid. Haddaba hadalkaasi waxa uu ku noqday laf dhuun gashay oo hadalkaasi dhulka ayuu noloshiisa u riday oo niyad ahaan waa uu burburay. Haddaba ninkii Malcolm ahaa markii xaaladdu sidaa ku noqotay waxa uu bilaabay in uu ku biiro kooxaha gaangiska ah ama markaasi xatooyada iyo waxyaabaha sharci darrada ah sameeya, hadday noqoto darooga iibin, hadday noqoto dilid, hadday noqoto dad la dhaco, waxyaabahaas waani xumaan kuwa sameeya ayaa uu ku biiray. Taasina waxay dhacday markii uu guuray magaalada loo yaqaano Boston kadibna New York. Halkaas waxa uu ku galay nolol ay ka buuxdo khamaarka, mukhadaraadka, dambiyada. Ugu dambeyntii waxaa la geliyay xabsi isaga oo 20 jir ah kadib markii lagu qabtay dhac. Haddaba xabsiga dhexdiisa noloshiisii ayaa aad isu bedeshay oo ninkii Malcolm ahaa aad ayay noloshiisa ku bedeshay oo waxa uu dareemay in ay noloshan ugu jira tahay mid khiyaali ah. Wuxuu bilaabay in uu wax akhriyo, buugaagta baadho. Intaas ka bacdi waxa uu sikadiisa ku bartay amba ula kulmay rag muslimiin ah oo markaasi xabsiga kula xirnaa. Taasina waxay u suurtagelisay in uu diinta halkaasi u qaato, qur-aankana uu barto. Kitaabka qur-aanka markuu akhriyay, taariikhdana dib u raacay, ninkii Malcolm X ahaa waxuu noqday nin hanuunsan iyo waxyaabihii xumaa iyo falalkii khamaarkii dhibaatooyinka kale uu ku jiray nin faraha ka qaada. Waxa uu ka takhalusay magaciisii ahaa Little oo waxa uu la baxay magaca X sababtoo ah waxa uu ogaaday in magacani uu yahay magac addoonsi ah, taasina astaan ay u ahayd magaca qabiilkiisa asliga ah. Haddaba markii la sii daayey ninkii Malcolm X ahaa 1952 Malcolm X wuxuu noqday mid ka mid ah dadka ugu cadcad ugu xooggan ee u dooda xuquuqda dadka madowga ah. iyo hadalladiisa xooggan waxa uu si toos ah ugu dhaliili jiray dadka markaasi wada
amaba dulmiya dadka caddaanka ah ee dulminaya dadka madowga. dad badan oo madow ah ayaa dareemay sharaf iyo qadarin uu u soo celiyey. waxa uu caan ku noqday weerihiisii ay ka mid ahaayeen We want freedom by any means necessary. Malcolm X taariikhdu markay ahayd 1964kii waxa uu aaday ama u xarka xidhay dhankaas iyo xaramka ama xajka. Races believing in one God and one humanity. halkaasna waxa uu ku arkay muslimiin caddaan ah iyo madow ah oo isku ag tukanaya isku garab tukanaya yacni si siman oo wada jir ah cunto iyo salaad la simanayo. sidoo kale taasi waxay ahayd la yaab weyn marka la eego Malcolm X waxa uu hore u soo arkay. haddaba taariikhdu markay ahayd 21kii February 1965 waa hal sano kadib markii uu xajka tegey. Malcolm X waxaa lagu dilay magaalada New York intii uu khudbad jeedinayay. markaasna waxa uu ku dhintay isagoo da'diisu ahayd 39 sano keliya, balse fikirkiisa iyo halgankiisii weli waa uu nool yahay. saaxiibayaal, haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir, haddii hore noola joogtayna muuqaalka like noo saar, sidoo kale aragtidaada nagula wadaag qaybta commentiga. mahadsanid.